muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa howlgabka qanjirka dhuunta ee thyroidka. Waxa ayana fiican inaad ogaato waxa uu yahay qanjirka dhuunta ee thyroidka. Qanjirka thyroidka waxa ayuu ku yaalaa dhuunta, waxa ayuuna labada dhinac ka xigaa tubada hawmareenka qaybteeda kore, sida sawirka halkan kaaga muuqdo. Qanjirka waxa ayuuna soo saaraa dheecaamo hormoon ah oo jirka uusan ka maarmin. Dheecaamadaasoo loo yaqaano thyroid hormones. Waa maxay waxyaabaha saameyn u geysta qanjirka dhuunta ee thyroidka? Waxyaabaha qanjirka saameyn u geysta waxa weeyaan dhacsanaanta qanjirka thyroidka ee loo yaqaano hypothyroidism iyo kacsanaanta qanjirka thyroidka ee loo yaqaano hyperthyroidism. Waana laba cudur oo lid isku ah. Calaamadahooda iyo daaweyntooda wayna ku kala duwan yihiin. Waa maxay howlgabka qanjirka thyroidka? Howlgabka qanjirka thyroidka micnihiisu waxa weeyaan heerka dheecaamada hormoonka ee hoose u dhacaan. Haddii hormoono jirka ku filan uu qanjirka soo saari waayo, waxa ayuu qofka dareemaa dhowr astaamo oo lagu garto howlgabka qanjirka thyroidka. Dhacsanaanta ama howlgabka qanjirka thyroidka waxa ayuu ku badan yahay haweenka da'dooda dhexdhexaadka ah. Waxaadna ogaataa in dumarkeena Soomaaliyeed aad ugu badan yahay howlgabka qanjirka thyroidka. Sidoo kale, cudurkan howlgabka qanjirka thyroidka calaamadihiisu ay isugu ekaani karayaan dhowr cuduro sida rheumatismka, wadna xanuunka, cudurka kolestaroolka, cudurka gandida ee loo yaqaano brucella iyo calcium yarida. Fadlan, haddii aad isku aragtid calaamadaha howlgabka qanjirka ee thyroidka, waa inaad dhakhtar u tagtaa si uu baaritaan kuugu sameeyo, kadibna loo ogaada in cudurkan howlgabka qanjirka thyroidka uu ku hayo iyo in kale. Waa maxay calaamadaha lagu garto howlgabka qanjirka thyroidka? Howlgabka qanjirka thyroidka calaamadihiisu oo la dareemo waxay ku xiran tahay heerka uu marayo iyo haddii uu howlgabka qanjirka thyroidka ku hayo muddo. Waxa ayaad dareemaysaa calaamado ka duwan markii uu kugu cusbaa. Calaamadaha ugu horeeyaan oo lagu garto howlgabka qanjirka thyroidka waxa weeyaan caajis iyo daal. Haweenka qaarkood daal iyo tabardarri awgeed markay xoogaha socdaan waa in ay nastaan oo ay fariistaan. Miisaankaagu oo kordho adigoon cunin cunto badan. Calool fadhi, wajiga oo ku bararo, caadada oo ka wareerto ama siyaado noqoto, codka oo xabeeb yeesho khaasatan subaxdii hore. Waxaadna ogaataa cod xabeebka aad isku aragtid waa calaamad xagga dhuunta ku bararsan. Kala goosyo xanuun, murqo xanuun iyo tabardarri aadan si sahlan fadhiga uga kici karaynin. Hilmaan aadan horay u qabi jirin iyo caajis maskaxda ah. Maqaarka jirkaagu oo boorboor yeesho ama qaliil noqdo. Dilan soo noqnoqdo ama haweeneyda oo uur yeelan wayso. Qabowga oo aad dhibsatid ama xilliga qaboobaha oo caajiska aad kugu bato. Fadlan mid ogow qanjirka oo soo kuusto ama bararo. Qofkani uu dareemo in dhuunta laga ceejinayo. Xanuunka howlgabka qanjirka qasab uma ahan in qanjirka uu bararo. Dadka badankood xanuunkan ayay qabaan iyagoo dhuunta wax barar ah ku lahayn. Waxaad kaloo ogaataa haddii aan la daaweyn howlgabka qanjirka dhuunta ee thyroidka, calaamadihiisu way ka sii dari karayaan oo qofka way ku xumaadaan oo waxaad dhici karayso in ay heer kale isku bedesho oo cadaadiska dhiiggaagu hoose u dhaco, neefsashada ku dhibto, heerkulka jirkaagu uu dhaco oo xitaa ay dhici karto in koma aad gasho. Laakiin maahan arrin badanaa la arko.